inteenu dulqaatay qalaad khilaafi. tani waa hees ay soo qaaday fanaanada caanka ah ee loo yaqaan Yurub Genyo isla sidoo kale lagu magacaabo Sawtu Raxma. isla heestan uu soo baahiyay muuqbaahiyaha Hawraar Media saacada ka hor ayaa la kulantay falcelin ballaaran taas oo asxaabta TikTok ay in badan isla dhaxwadeen. isla heestan oo saacadaba oolin waxa ka daba tagtay abwaanada Kaaba Axmed Caydiid oo sheegtay heestan inay iyadu leedahay ereyada qaar kamida ereyadan ay soo dhigtay 2019 beeshkeyga. bal imikana ishahan isla marin ereyada ay abwaanadu soo dhigtay qaar kamida waxa kamida maxaan u dulqaatay qalad dibtayda aanoo qarsada maxaan qosol raadin jiray waana kooriska inta ugu macaan ee heestu ku soo laalaamaysa ee fanaanadu ku soo celcelinayso iyo qaar kale oo kamida waayaaba bal ishaan ku wada qabano fanaanada oo ereyada ku soo celcelinaysa iyo sheegashada abwaanada. inteenu dulqaatay qalaad khilaafiyo muran ku jiray ciilkayga anoo qarsada maxaan qosol raadin jiray way. isla halka ay Hawraar Media ay ku soo magacaabeen ninka ereyada sameeyay Xuseen Carab. haddaba adiga daawada maxaa kula gudboon in xaq loo dhiciyo Kaaba abwaanadeena oo la cambaareeyo la dhaleeceeyo xatooyada iyo burcad badeedka fanka. waan salaamayaa wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.